Sweden iyo Finland ayaa bishii hore codsaday inay ku biiraan xulafada militariga reer galbeedka taasoo jawaab u ah duulaanka Ruushka ee Ukraine oo haatan weli ka sii soconaya dalkaas iyadoo dunidu ay sida muuqata xal iyo xeelad wax ku ool ah oo ay ku joojin karto duulaankaasi u weysay sheekadeeduna waxa ay ku soo gunaanutay cambaarayn iyo cunuqabatayn aan xal kale wehlin sida ka muuqata dhaqdhaqaaqa gobolka oo ay hormuud u yihiin wadamadani ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub ee Finland iyo Sweden ayaa dadaal iyo juhdi wax ku ool oo isla siman ku bixiyay inay soo gabagabeeyaan tallaabada ay dhawaan qaadeen taasi oo meesha ka saaraysa gu'yaalo badan oo ay ku naaloonayeen siyaasad dhexdhexaad ah balse sida muuqata wax badan ayaa iska bedelay danihii gobolka dhaqdhaqaaqii dawladahani iyo in ay hadda wixii ka dambeeya ku sii jiraan dayr aan lahayn tabaabusho iyo sidoo kale dabcan dareeno wax ku oola oo la isku halayn karo Moscow inaysan jirin sharci iyo handadaad celin karta ayayna ugu dambeyn ogaadeen taasi oo qasabtay inay qaataan go'aan u horseedaya guul ama geeri waana sida ay hadda ka dhabeeyeen oo ay ugu bareereen laakiin damacooda iyo doonistooda waxaa wax badan ka bedelay aragtida diidnimo ee ka timid maamulka madaxweyne Erdogan walaaca amniga ee ay soo bandhigtay Turkiga ee ka soo horjeeda in Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO waa sharci sida uu shaaca ka dhigay xogayaha guud ee gaashaanbuurta oo haatan socdaal ku maraya wadamadani ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub. The summit in Madrid was never a deadline. At the same time, I would like to see this solved as soon as possible, and therefore we are working hard. hooyada shirku weligeed ma dhicin waqti kama dambaysa isla markaana waxaan jeclaan lahaa inaan arko tan la iibinayo sida ugu dhaqsaha badan sidaas darteed waxaan si adag ula shaqaynaynaa xulafada NATO ee Turkiga iyo sidoo kale Finland iyo Sweden si aan wax uga qabanno arrimahaas walaaca sharciga ah tani waxay ku saabsan tahay argagixisada dhoofinta hubka waana inaan fahamnaa oo aan xusuusnaanaa in dhammaan xulafada NATO aysan la kulmin weeraro argagixiso oo ka badan Turkiga sidaas darteed sidoo kale waxay soo dhaweeyeen duugista cad ee Finland iyo madaxweynaha wadankan iyo sidoo kale Sweden oo runtii diyaar u ah inay u fariistaan sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas kadib si loo helo dariiq hore loo marayo waa go'aanka saxda ah ee Finland iyo Sweden inay dalbadaan xubinnimada taas oo xoojin doonta ammaankooda docda kale waxay xoojin doontaa NATO waxay xoojin doontaa ammaanka iyo xasiloonida guud ahaan aagga ee Euro-Atlantic ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO.